xukuumaddu waxay soo gudbisay comparison lama samaynayo lama matalayo wixii hore iyo wax hadda taagan waxay ahayd waxyaalaha la yiri waa la qabanayaa ma la qabtay mise lama qaban haddii la qaban waayena waa maxay carqaladaha jira ee loo qaban waayo oo si cilmiya oo caqli shaqaynayo in loo waajaho gudiyaynu leenahay jeeso waxaan uga garaabayaa run ahaantii warbixintiisa inaynu dhegaysanay hadday warbixin soo diyaariyeen wayna anfici lahayd waxyaalo badan oo aynu waqti badan ku luminayna waxa laga yaabi lahaydba inay dabooli lahayd oo hadda walaaca waxa fiican marka daristid dhibaatada in haysata xagga amniga noocyo badan bay leedahay midi waxa lagu sifayn karaa karti daro mid waxa lagu sifayn karaa habka aynu u galayno oo dagaalka ugu galayno nimankan nabadiidka oo aad moodid inuu u baahan yahay in wax laga bedelo sababta wax looga bedelayaana waxay tahay asymmetrical warfare bay ku shaqaynayaan waa niman ku dhufoo ka dhaqaaqa ciidamo military oo meel fadhiya lamaba dagaalami karaan habka istaraatiiji cad oo habka lagula dagaalamaya oo ciidan commandowsa xuduudaha ciidamada militariga xuduudaha loogu talagalay xuduudaha kuwaynu ka difaaci jirnay dalka gudihiisayba joogaanoo difaacaya dowladihii laga difaaci jiray xuduudaha waa kuwan joogay magaalooyinkoodna joogo oo iyaguna difaacaya oo iyaynaga difaacaya Soomaali uun dagaalamaysayba ka difaacaya Soomaali uun baa la kala celinaya inamada shabaabka nabadiid waa wiilasheen waa Soomaali uun baa istiraysa haddaad eegtid sideetanaadkii marka laga soo bilaabo ilaa hadda Soomaali uun baa istiraysa noocyo kala duwan ha qaateen سادرتد عقلي وإنه تليا للدنيا أمنية سيدا لو واجهها وإنه نقضاء علمية عيدا دبد كاغا سو دوري أو دولة كاغا سو شيء سيبا إلى ضعي إن لو واجه عيدا حمر كتشرا أو أنا الأركين أو ويل كاغو إنه كتشرا أي بيع كرتو ولا الكاغ كتشرا ويل كلام تيجا وتاي كتشرا أو مجالات الشوغا أو فلان argagixisaa oo dhibaato u wada dalka kugu sameynaya hadda ka soo qaad annaga central markiina lagu qarxiyay gabadhii aan ugu jeclaynay hotelka haysay baa qarxisay 60 bay maalinta dishay gabadhaasna hadii la dhihi lahaa waa argagixiso aan 7 wasiir baan ku deganay 7 iyada wasiirba gabadhaas waxaan dhihi lahayn gabadha maxaa laga rabaa xaqiiqdu waa saa وقف كلامنا وقف ضدك كواد وجه عشاء وكأك جوجا لكن مبدأ قلد الجلية وعدو كون قنايا أو كبابين صدق عشاء صومني 4 خميس يجمعها أي نقر حين يسوع صدق هذا هو صومني وحي قبتين يتشنت تجس ودليلتني أول لما هذابيي أو عدو إنه نقضي marka sidaynu u waajahayna waa ka duwan tahay ciidan military oo generaalradeeni intaan keenno sidii loo waajihi waxa wardoom xamar oo kale waxyaalaha wax lagaga qaban kara ciidamo shidad la dhigo lagagama qaban karo dhagxaan sawir oo meel lagu gooyo wardoonkiina dhibaatooyinka ugu waaweyn haysa ammaanadeeni baa xumaatay berigii hore qof baa 1 milyan loo dhiibi jiray oo lagu aamini jiro aan taaban jirin safaaradaha for example sababo kale Cabdiraxmaan Ilaahay u naxariistay 1 milyan oo dollar baa loo dhiibi jiray shilin kama taaban jirin shilinna kama haysan waxaasna wuxuu ku bixin jiray wardoon laga keeni jiray Itoobiya wax lagaga hadla dheergoodu keeni jiray hadda ammaanadii wax xumaatay qofkii wax loo dhiibaa inta badan waa lunsanaya dhibaatadaas asaasiyo jirto wardoonku wuxuu baahan yahay wala transparency ma jirto oo waa lacag hoos loo bixinayo in la bixiyay in kalena laga ma warayo dhibaatooyin fara badan oo musuqmaasuq awalan ka yahay oo bulshadeena saameeyay
sida bulshada Kenya oo kale wax walba waa la qabtay institutions waa sameeyay haddana musuqmaasuqii waa la kari laayay musuqmaasuq baahay waa ka mid dhibaatooyinkeena waxa ka mid ah resources cashuur aynu bixinaa aad u yar cashuuraha aynu bixinaa lacagta dalka soo gasha maalin dhaweyta xukuumaddu waxay ku faalaysay 140 milyan baa sanadkii hore soo xaday ceeb miyayna ahayn dal intaa leeg hal department baa dhowr 100 milyan ay ku baxdaa meelaha qaarkood dalalka macnaheedu waxa weeyaan amni fiican lama helayo ilaa resources dhaqaalihii ku filnaa ee aan ciidamadeena siinin ciidamadeenu inay $100 qaataan run ahaantii ma ahayn inay ka fiicnaadaan inay xariye yeeshaan 10 sano horteed dhibaatooyinkii aanu ka hadli jirnay war xariyaha naloo sameeyo war ha loo sameeyo tababaradii waa la sameeyey laakiin xariyihii askartu seexan lahayd hadda askariga suuqa lagu sii daynaya qaad buu ka dhargaya meel walbuu qaad ku cunaya askartu berigaan shaqada qaranka iyo ku jiri jirnay khamiistaa la soo bixi jiray askarigu inta cashee kale subaxdii baa la ordisiin jiray askari fituha askari soo jeeduha maalintaa fasaxana wuxuu doonu samaynay hadda askartii meel male hubkoodii meel ma yaallo ammaanad ilaa hubka waa in meel la dhigaa markuu suuqa aadaya waa in hubku meel yaallo waa in xariya meel walba ku leeyihi xariyihii lama dayactirin waa dhibaato 10 sano horteed markaan guddiga amniga qaranka ku jirnay dhibaatooyinkii berigaana hayay baa haddana taagan isla hadda marka waxaad moodaa tadawurkii meelo aynu ka samaynay waa jira meelaha qaarkoodna lagama samayn dood caafimaad qabto oo wax la sheegayaana waa loo baahan yahay dooda waxa wax loo tilmaamayaa ma aha in wax la xumeeyo waa in wax la saxo waa in lagu saxaa oo xukuumadduna aysan u arag in la durayo oo laba qolo iska soo horjeeda ma nihin waxaynu nahay dawlad qarankan mas'uul ka wadaa mas'uuliyadda naga saaranna in dadkeenna aynu u helno ammaan taaba ammaankaas wuxuu ku iman karaa inagoo xisaabtana guddoonka iyo xildhibaanadana run ahaantii aad iyo aad waxaan ugu boorin lahaa oversight responsibility hadda maalin dhawto interparliamentary unionka markaanu tagnay buug dhan baa nala soo siiyey oo mas'uuliyadda kormeerka oversight responsibilityga baarlamaanada buuggaas af ingiriisi buu ku qoran yahay guddoonku inay turjumaan baa qurux badnaan lahayd oo loo qaybiyo xildhibaan walba oo mas'uuliyadda ay leedahay because ma qabanno run ahaantii inaynu la xisaabtanno inaan marmar baraarugno 2 sannadood ka bacdi intaan baraarugnay hadda inaynu wax walba cagta marino ma habboona waa in aynu joogtaynaa oo wasaaradaha la xisaabtanaa oo wixii qaldan qaarna waa ka hortag qaarna waa sixitaan guddiyadu waxyaalo noqon kara qalad ayay ka hortagi karaan waxay kaloo sixi karaan wax tallaabo la qaaday iyadoo oo aan fogaan in la saxo laakiin haddii aan lala soconba baarlamaankeenoo dhan lama socon karo tallaabooyinka guddi walba guddiyada aad u shaqeeya run ahaantii oo ammaan mudan guddiga maaliyadda aad bay u shaqaysaa guddiyada kale run ahaantii sidii la filayay uma shaqeeyaan waxaana loo baahan yahay kormeerka aynu dawladda ku haynaa ma noqonayo mid taama ilaa guddiyadu si fiican u shaqeeyaan oo la saxo xukuumadda waxyaalo badan oo qaldan oo dhaliilaac baa la sheegay oo halkan laga sheegay waxa fiicnaan lahayd in guddiyada loo geeyo oo guddiyadu ay ka hortagaan ama saxaan dhaliilooyinka talooyin badan oo fiican baa la keenay talooyinka inta loo ururiyay in guddiyada loo dhiibo oo guddiyadu ay kula xisaabtanto wasaaradaha markaas ay mas'uulka ka yihiin kormeerka ku leeyihiin waxayna tahay doodan waana ku dheeraanay waana kolle aan waxaan arka kolle mid caafimaad qabto oo shacabkana dareen badan baa jiro baarlamaankiiba ma shaqeeyaa lagu yidhi maybe inaynu shaqaynayno oo miiska garaacayna waynu tusaynaa waa qurux badan tahay runtii inaan tusno shacabkii inaan
xukuumaddii aynu inagu ansixinay xataa maalintii barnaamijka inaan akhrino waa naloo diiday dad badan oo aan ku jiro waxaan lahayn war barnaamijka aynu iska akhrino rag baa intay motion keeneen yili lama akhriyayo iyadoon waxba la akhriyin ha la ansixiyo haddana dhibaatooyinkeedii waa haynaayo barnaamijka maalintaa waa laga doodi lahaa waa la arki lahaa qof walba kor buu ka qaybi lahaa oo wuxuu kula xisaabtama xukuumaddu hella hadda rag baaba soo fuqay anigu Saleemaan barnaamijku akhriyay anigu hadda baba arag oo timeline lahaa oo waxyaalo badan lahaa oo benchmarks lahaa waxaanu kula xisaabtanay baynu haynaa hadda xukuumadda iyagana waa gudiyada ha loo diro oo runtii markay soo dhaweeyaan haddaynu prime ministerka halkan